munaasabad ballaaran oo lagu maamusayay sanad guuradii 8aad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa xalay lagu qabtay magaalo xeebta Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. munaasabadan oo qaban qaabadeeda isku xilqaameen dhalinyarada Hirshabelle ee gobolka Western Cape ayaa marti sharaftii madashaasi ka soo qayb gashay waxa ay qireen horumarka iyo isbedelka la taaban karo ee gaartay maamul goboleedka Hirshabelle. haddaba dadkii goobtaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa Hirshabelle caawa kalama maqna meel kasta ay joogaan dadka reer Hirshabelle waxay caawa kalama maqna marka waxaan leeyahay reer Hirshabelle hore loo sheegay waxaan leenahay horta guul marka ugu hore madaxweyne Cali Guudlaawe asagana waxaan leenahay guul ayaan leenahay inta la shaqeysa tiimkiisa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca odayaasha jaaliyadda Western Cape ku abtirsada Hirshabelle waxaan leeyahay maaragtay hambalyo meel kasta oo Hirshabelle ay joogto oo maaragtay meel kasta oo kamida wadanka iyo amba dibadda amba meel kasta dhamaantoodna aad iyo aad aan u salaamaya awada xarfadayna lama soo koobi karo farxadayna madaxaana furan caawa habeenka hirka bisha 10aad waa hirka waa sanad guuradii 8aad shalama imaanin waxaan caawa u taaganahay waa farxad iyo dabaaldeg war badan meeshan ka furra dhamaanteen jaaliyadan gobolkan Western Cape caawa dhamaanteed oon kala harin waxay yihiin Hirshabelle oon bi ismarin marka caawa waa laga dareemayaa Hirshabelle awoodeeda iyo gacanteeda iyo garab istaageeda marka waxa leenahay dhamaan Hirshabelle guul iyo horumar iyo barwaaqo waarta sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda KwaZulu Natal ayaa xafladani lagu casuumay isagoo aad uga mahad celiyay sida qiimaha badan ee loogu soo dhaweeyay xafladan dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan rabaa inaan maaragtay u mahad celiyo dadka meesha ugu soo dhaweeyay oo reer Cape Town oo aan u miday inaan xafladda kala qayb qaato xafladdan oo sanadisantay oo joogto xilligii 8aad marayso aad ayaan ugu mahad celinayaa dadka soo qaban qaabiyay oo isugu yimaday halkaan xafladda quruxda badan leh oo soo toosiyay walaalayaal waan ku mahadsantiin kulligeen awada waxaan filayaa kulligeen waa Hirshabelle saddex u malayna Hirshabelle waxaan leenahay guul ha guuleysatay Hirshabelle maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa si toos ah uga qayb galay reer Cape Town xafladii ay ku qabanayeen magaalo xeebta Cape Town waxaana qodbadiisii kamid ahaa aad u mahadsantihiin guud ahaan waxaan salaamayaa jaaliyadda South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town guddiga is-abaabulay iyo guud ahaan marti sharafka iyo jaaliyadda dhammaan cid kasta ee ku sugan xafladda waxaan ku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa calaykum assalaam waxaan ka mahad celinayaa sida qiimiga badan ee isu abaabusheen idinkoo weyneeyahayo maalintii la aas-aasay dowladda Hirshabelle ay ummadda Hirshabelle calan iyo dastuur yeelatay oo ka soo wareegtay 8 sano inaad waqtigiina iyo wax dheefkiina isugu dartiin idinkoo maalintaas weyneenayo lana qaybsatiin dadkiina farxadda waxaan ilaahay idinka abaal mariyo aad iyo aad aadna u mahadsantihiin ummadda Hirshabelle guud ahaan hambalyo ayaan leeyahay waxaan alla ka baryaynaa sanado badan oo barwaaqa iyo horumar in ilaahayna gaarsiiyo idinkana waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin runtii dadkiinni iyo dalkiinni hiloobaad u qabtiin inaad waqtigiinni iyo wax dheefkiinni isugu darteen inaad la qaybsatiin bulshaweynta Hirshabelle farxadda aad la qaybsatiin maalinta la aasaasay dowladda Hirshabelle 8 sano ka soo wareegtay runtii waxaan idin leeyahay ilaahay idinka abaal mariyo wanaagaas maaragtay oo faraha badan oo samayseen dowladda Hirshabelle saad ogtiin waxay ahayd dowlad goboleedyada dowladda u yareeday maantana waxay joogtaa meel aad u wanaagsan baawurkii maanta ka baxo magaalada Muqdisho wuxuu tagaa beledweyne ilaa Gaalkacyo si nabada amniga haddii la yiraahdo waa deegaanadii ugu ballaaran nimanka khawaarijta laga xoreeyay dhanka galbeedkana haddii la raalli ka noqdo waqti dhawaan u jeesan doona iyadana sidoo kale loo xoreynayaa
laakiin bariga webiga ka bari dhammaan xur waayay mashaariic aad u fara badan ayaa ka socoto dadkuna si nabadgelyo ah oo xorriyad ah ay ku nool yihiin ilaahay ayaa mahadaas iska leh runtii waa ka mahadcelinaa idinkana taladiinna iyo garab istaagiinna iyo guubaabadiinna iyo guud ahaan waxa dalka Soomaaliya ka geysateen gaar ahaan Hirshabeelle waa ka mahadcelinayaa runtii waxaan idin qirayaa inaad tihiin dad wadaniyiina dadkooda dareenka ay qabaan alla qaba inaad tihiin qira ilaahay idinka abaalmariyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Luqmaan ayaa khudbadu ku cabirayay dareenkiisa iyo sida qiimaha badan ee jaaliyadan ay uga soo qayb galiyeen xafladan ay ku qabanayaan magaalada xeebadka Cape Town isagoo aad uga mahad celiyayna waxa hadaladiisa kamid ahaa halkan waxaan ka salaamayaa jaaliyada barakaysan ee Hirshabeelle ee ku nool dalka Koonfur Afrika Cape Town waxaan leeyahay caawa soo baxa aad sameyseen iyo xafladda quruxda badan oo idinkaga mahad celinayaa Hirshabeelle waa 8 jirsatay sanad guuradii 8aad baan loo dabaaldegayaa waxaan ilaahay ka baryayaa sanadkan sanadkiisa ilaahay inuu nagu geersiiyo annaga oo wada caafimaad qabno oo sidaan oo kale u dabaaldegayna insha Allah haduu ilaahay raado sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa shacab weynaha ku nool Cape Town guud ahaan Koonfur Afrika ee Hirshabeelle ganacsatadooda iyo dadkooda mas'uuliyiintaba ah sidoo kale mas'uuliyiinta oo waqtigu u saamixi waayay in ay jaaliyada waqtigooda quruxda badan kula qaataan xafladani waxa kamid ahaa taliyaha guud ee booliska maamul goboleedka Hirshabeelle Xasan Dhicisow Xasan iyo waliba gudoomiyaha dhalinyarada ee maamul goboleedkaasi Fartuun Aadan Xeefo waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan u hambaliyeeyo ama u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa qaabka quruxda badan oo nooga qayb qaatay xafladan isagoo noo sheegay inuu jeclaan lahaa inuu noo yimaado howlo shaqo badan u yaalan ay dhici weysay waxaan rabaa inaan dib ugu laabto hambalyeenta iyo mashxaradda maamulka Hirshabeelle oo sanadkii 8aad dhisan horta Hirshabeelle waxay ka kooban tahay 2 gobol oo la yiraahdo Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan sida ogsoonahay 2 gobolba waxay dhacaan meel istiraatiiji ah ama aad u muhiim ah marka loo eego juqraafigally dalka Soomaaliya gabagabadiina gudoomiyaha jaaliyada Hirshabeelle ee gobolka Western Cape Mudane Bootaale Cali Muuse oo ku hadlayay magaca guddiga qabanqaabada munaasabadan quruxda badan ay hirgeliyeen ayaa xafladda soo xiray sidee u dabaaldegeen sidee u taageereen maamulka Hirshabeelle waxaan leeyahay dhalinyarada ka soo qayb gashay odayaasha dhaqanka dhammaan way wadaagsan yihiin bulshooyinka Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay xafladdaas maamuuska leh way ku mahadsan yihiin marka waxaan leeyahay caawa xafladda halkaan ayaynu soo gabagabeynaysaa mudane madaxweyne ku-xigeen gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan oo nagala qayb qaatay iyo taliyaha ciidanka booliiska Hirshabeelle Xasan Dhicisow Xasan korneelka oo nagala qayb qaatay xafladdaas waxaan leenahay hambalyo Hirshabeelle dhammaan nabadgelyada ka jirto gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaan leenahay hambalyo Hirshabeelle meel walba ay joogtiin waa caawa calankii loo dabaaldegayay South Africa anigoo ah gudoomiyaha jaaliyada Hirshabeelle Western Cape Town marka dhammaan waxaan leeyahay dhalinyarada ka soo qayb gashay gabdhaha iyo wiilashaba waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan leh ee xafladda aad ugu soo qayb gasheen Maxamed Axmed Siyaad Somali Cable TV Cape Town Koonfur Afrika